السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشركي كواد يا HTML كبراب صومالي. وما HTML sidaan hore u soo aragnay waa xeerarka asaaska u ah dhismaha website-ka. HTML waxa laga soo gaabiyaa Hypertext Markup Language oo macnaheedu yahay waa luqadda uu fahmayo kombiyuutarka si loo daalacdo qoraalada website-ka. Marka luqadda uu ku socdo website-ka ayaa la dhahaa HTML. Marka aad booqatid website waxaad arkaysaa muuqaalkiisa guud oo ku soo baxayo. Tusaale ahaan sawirkan dhinaca bidixda ka muuqda waa website-kii. laakiin website-ka waxa loo yaqaan HTML waa kan dhinaca midigta ka muuqda. waxaana xeerarkan la arkayaa dhinaca midigta ku yaala marka daaha laga rogo muuqaalka guud ee website-ka. waxaana la arkayaa markaas xeerarkii uu ku shaqaynayay marka la qoraansado website-ka. tusaale ahaan markaad booqatid website ka doonta haatee oo aad tirahdid right click aad ku dhifatid macna dhinaca midigta ee hagaha aad shaashada ku riixdid waxaad eegaysaa markaas view page source ama page source view page source halka markaad riixdid waxa ku soo baxaya xeerkii HTML-ka uu ku shaqaynayay barnaamijkani. hadda waxaan arki doonaa markii loo dhiso xeerarkaas HTML head iyo xeerar kale oo aan arki doono insha Allah casharada markaan barano. waa garatay baan filayaa. wax yar haddaan dib u jaleecno taariikhda HTML-ka sanadka 1992 ayaa lagu asaasay magaalada Geneva ee dalka Switzerland xarunta loo yaqaan xarunta physics-ka. waxaana intii ka dambeysay HTML soo martay heerar kala duwan. sanadka 1999 ayay ugu muhiimsanayd waxaana gaartay waxa loo yaqaan HTML 4.1 oo xeerarka ugu muhiimsan ee website-yada badankooda ilaa hadda ku dhisan yihiin. waxaa ku xigay XHTML 1.0 oo soo baxday 2002. marka waa HTML-kii oo la sii adkeeyey ama xeerarkeedii la sii horumariyey. waxaa ka dambeeyey HTML5 oo ilaa hadda doodeeda socoto. ilaa hadda lama dhaqangelin laakiin waxay u dhowdahay in la dhaqangeliyo. waxaana dhaqangelintaasi ku xiran tahay ama ay sugayaan browserada lagu daalacdo website-yada intay soo gaarayaan barnaamijka la qabsanayaan. marka tusaale ahaan marka la eego Internet Explorer ama Safari, Opera, Chrome, Firefox iyo Chrome iyagu mar hore ayay aqbaleen. hadda waxaa soo gaaray Internet Explorer 9 macna kan u dhameeyay sanadkiisa hadda uu soo gaaray. ma garatay marka taariikhdaas kooban ayay soo martay iyo heerarka kala duwan. marka aad taqaanid xeerarka HTML 4.1 aad bay kugu salaanaysaa xeerarka HTML5. wax yar baa lagu daray oo la sii habeeyey ama la sii nidaamiyey. inta inaan dhex gelin xeerarkii haddaba aanan qorin waxaan isla eegaynaa erbixin kooban ee ku saabsan xeerarka HTML. xeerka HTML waxaa la dhex geliyaa waxa loo yaqaano tag. waxaan ugu yeeraynaa tagga loox macnaheedu maxay tahay? tusaale ahaan hangoolkan fiiri waa fallaarta hangoolka oo labada dhinac laga geliyey xeerkii. marka la qorayana waxaa la qoraa shift waxaa la isla qabtaa shiftiga kombiyuutarka taabkiisa iyo bil furan. markaasaa xeerkii la qoraya meesha lagu qorayaa. kadib waxaa la qorayaa markaas shift la garaacaya la riixayaa shift iyo bil xiran. marka waa shift bil fur xeerkii qor shift bisha xir. waxaan filayaa in halkaas fiican u fahamtay. haddaba diyaar ma tahay? diyaar ma ku yahay Notepad ama Notepad++? sidoo kale diyaar ma ku yahay browser aad ku daalacan doontid faylka aad samaysay? waxaan filayaa inaad sidoo kale soo diyaarisay khaanad ama folder aad ka samaysay kombiyuutarka ku xiran doontid faylasha aan samayno. waxaan filayaa inaad diyaar tahay. casharkana waxaan ku baran doonaa sidiisaba xeerarka HTML asaaska u ah ee ugu horeeya. sidoo kale waxaan baran doonaa sida loo sameeyo tuducda ama baaragraafka iyo sida ciwaanada loogu sameeyo qoraalada. marka soo diyaarso barnaamijkii Notepad++. Notepad++ waa barnaamijka aan casharka hore ku soo aragnay. haddii casharka aad ka bilaabatay dib ugu laabo casharka koowaad si aad u soo rogatid barnaamijka Notepad++. haddii kale waxaad adeegsan kartaa Notepad oo ku jira kombiyuutar kasta. marka haddaan bilowna xeerarka HTML-ka. waxay xeerarka HTML ku bilaabmaan HTML bay ku bilaabmaan oo uu labadii hangool dhinacyada kaga jiraan ama labadii fallaarood. waxaa lagu xijiyaa head oo madaxii ah enter. waxay ku xijinaysaa title oo ciwaanka guud ee website-ka lagu qoro. halka waxaa lagu qoraa ciwaanka guud
website-ka marka saxiraysaa marka doona waxa macquul jeedno xirid title enter waxaad tiraahdaa markaas waxaad xiraysaa markaas dabar baa u samaynaysaa head enter markaas waxaad bilaabaysaa bodigii oo ubuucda lagu qori doono qoraalada markaas waxaad qoraysaa qoraalka lagu qorayo website-ka enter markaas waxaad dabar u samaynaysaa bodigii enter markaas dabar wax u samaynaysaa html-kii aad soo ku bilowday ayaa dabar u samaynaysaa html waxaan filayaa inaad meeshaad fahamtay u fiirso hadda waxaan nidhi waxaan ku bilownay html waxaanu ku soo gabagabinay html marka si aad u aragtid si fasaxaysa u aragtid waxaa u kala samayn kartaa macnaha space ama meel bannaan baa u kala samayn kartaa html-ku wax dhib oo ma aragto haddii space loo kala sameeyo haddii sidan la qoro iyo haddii sidan la qoro macnaha lagu kala qoro isku jawaab bay soo saaraysaa marka hal space baan samaynaynaa headkana hal space baan samaynaa intaan waa isla socotaa headkii madaxii bodigana waa isla socdaa hal space baan samaynaynaa marka tiradan midigta kala socotaa waxay ku tilmaamaysaa uun inaad ku garatid maahane hadhow ma raacayso xeerkii guud barnaamijkan aan baaleh saan soo aragnay cashirka hore ku soo aragnay oo tirada si kugu sahlo oo lambarada ula socoto meesha maraysa haddii xeerku kaa khaldamo oo kaleeto saad kow waxaa ku qoran hadda html waxaa kow iyo toban waxaa ku qoran html-ka dabarkeedii heer bilowgiisa wuxuu ku qoran yahay 3 dhammaadkiisuna wuxuu ku qoran yahay 5 marka haddii uu isbedelo nambarkaas wax dhiba ma leh marka ha ka welwelin taas waa garatay ma filaya intaa markaad tirahdid faylka ayaan xafidaynaa marka hadda marka waxaan qornay intii qalfoofka guud ahaa ee html-kaan qornay aan xafidna faylka intaynaan xafidin oo dhihin safe as intaynaan dhihin waxaa shardi ah in faylka lagu lingaxo html dhibic html marka waa dhibic soo jeedo dhibic baa laga hormarinayaa html magacii faylka dhibic html waxaana faylka u bixin doonaa index macnaha ka dambaysa index aan u bixino waa arki doonaa laakiin waxaan u bixinaynaa index.html index.html waxaa shardi ah ama muhiim ah inaad ka ilaalisid inuu raaco dhibic text oo macnaheedu yahay text ama qoraal caadi ah gaar ahaan wuxuu raacaa text haddii aad ku save garaynaysid ama ku xafidaysid notepad inta badan notepad plus plusku ma raacayo text haddaba faylkiisi aad u xafidid waxaad tidhaahdaa file save as marka waxaad ka raadisaa kombiyuutarkaaga meeshaad ku xafidi lahayd ama khaanadii aan samaynay hadda waxaan iigu jirtaa library kadibna waxay ku jirtaa documents kadibna waxaan geenayaa tababar bartaasaan geenayaa maxaan yidhi waxaan u bixinay index dhibic html baan u bixinay notepad plus pluska si sahlan baa looga bedeli karaa bartaan si uusan text kaaga noqon inta badan kama dhigo laakiin saa u hubisid waxaad geysaa html marka hadda wuxuu kuu jooga html faylkana waa index dhibic html ama html marka waxaad tidhahdaa safe waxaa kuu xafidan markaa faylkii html-ka haddaba si aad u daalacatid oo u aragtid muuqaalka uu ku soo baxayo qoraalkaan qornay waxaad soo furataa soo diyaarsataa barnaamijyada lagu daalacdo website-ka sida internet explorer waxaad tidhahdaa marka file open marka waxaad raadisaa browse waxaad raadisaa faylkii aan xafidanay ka raadi kombiyuutarka dhexdiisa waxaan ku xafidnay faylkii hadda wuxuu inuu ku jiraa my documents baa tagtay macnaa halka waa ka baaraysaa meesha kuu xiraysnaa wuxuu aniga ugu jiraa my document kadibna waxaa weeyaan tababar markaasaa u imaanaysaa faylkii cillad baa jirta faylkan xafidinay waxaan u bixinay index dhibic html laakiin dhibic html lama socoto haddaba markaad damacdid inaad faylkii ku daalacatid browserka oo adeegtid faylkaa qortay
waxaad u bixisay index.html waad hubtaa taas laakiin waxa uu kombiyuutarku muujinayaa index kaliya sababtoo ah kombiyuutarka ayaa wuxuu qarinayaa lingaxa faylasha haddaba si loo muujiyaa taas haddaba si lingixii aan u muujino waxaad furaysaa folder kombiyuutar ka mid ah folderka tusaale ahaan inoogu jira faylku kadibna waxaad riixaysaa organize markaas waxaad ku xijinaysaa folder intaas ku xijinaysaa meesha ku qoran tahay baad sii riixaysaa kadib baad riixaysaa batoonka view markaas ayaad waxa weeyaan waxaad calaamadda ka baabi'inaysaa halkan waxa ku qoran calaamad baa ku qoran macnaha waa arki doonaa calaamadda meeshan ku qoran calaamaddaas waxaad ka baabi'inaysaa hide extension for known files macnaha waxaad qarisaa aad qarinta ka baabi'aysaa calaamadda waxaad ka baabi'aysaa meesha ku taallo faylasha la yaqaano siyaabaha kale sida lagu arko hoos bay ka muuqdaan sida tusaale ahaan haddaad adeegsanaysid Windows XP waxaa la marayaa qaabkan la marayaa smartid markaa kadib baa leedahay okay si aan u sameyno taas waxa weeyaan faylkii iska xir kana iska xir kana yaree my document waan tusaale furaya folder kiribtaati folder baa furtay soo maaha marka waxaad eegtaa meesha ku qoran tahay organize bartaas riix hadda waxaan adeegsanayaa Windows 7 fiistana waa la mid organize-ka riixaysaa kadibna waxaad riixaysaa meesha ku qoran tahay folder search options folder and search options bartaas riix shaashada yar baa kuu furmaysa shaashadaa furanta barta ay ku qoran tahay view riix kadibna meeshaan hoosteeda hoos u soco waxaad calaamadda ka baabi'aysaa waxaan nidhi taa macnaheedu waxay tahay hide extension for known files faylashii la yaqaano ha qarin marka hadda waxa ku qoran qarin ma ogtahay ha qarin marka waxay macnaheedu noqonaysaa ka baabi calaamadda marka waxaad tidhahdaa okay marka faylkan iska xir shaashadan la soo bax mar kale internet explorerkii markaa la soo baxo internet explorer mar labaad the file open browse marka waa ku muuqata soo ma jeed index html waa ku muuqdaa marka waxaad taqaanaa faylkaaga inuu aad samaysta yahay open double click garee macnaha kadibna waxaad riixdaa okay markaa qoraalkaan qoranay xusuusan waxaan idhi ciwaanka guud meeshan ku qoran muxuu ka soo baxayaa browserka korkiisa ka soo baxayaa kan waa ciwaanka guud waxaan lagu dhex qoray titleka lagu dhex qoray intana wuu ka muuqan karaa ma fahanti haddaad adeegsid marka Firefox haddii meeshan ku lahayn open in ku lahayn waxaad soo saari kartaa bartaas waxaad dhihi kartaa right click kadibna waxaad leedahay menu markaas ku muuqanaysa open mujida markaas leedahay open file hadduu kaa qarsoon yahay taasi haddaad waxaad dhihi kartaa markaas control iyo o baa dhehaysa oo open ah markaas wuxuu ku furmayaa shaashadii marka ka baar faylkii muxuu ku jiray tababar ونوم مقدار جدا double click garee waa kaas marka Firefoxna waa ku furatay marka hadda maxaa taqaanaa sida faylkii HTML-kii loo sameeyo guud iyo sida lagu furo browserka marka aan ku darno ciwaan iyo paragraph u sameeyno qoraalkeeni iska xirkuwan hadduu saan ugu darno qoraal ama paragraph u sameeyo ciwaan qoraalkan iska baabi'i space u sameeyso hadda rabtid waxaan qoraynaa marka hore waxaan sameynaynaa paragraph iyo ciwaan qoraalkaas uu leeyahay laba paragraph ama saddex paragraph iyo ciwaankoodii marka space u sameeyso si macnaha akhrisku ugu sahlanaado waxaad tiraahdaa h1 oo heading macnaha ma ciwaanka qoraalka wankuna waxay ka taagan tahay ciwaanka ugu weyn xir kadib waxaad tiraahdaa marka qoraalkii ku qor xir markaas dabar u sameeyay wankii enter markaas waxaan sameynaa paragraph waxa lagu gartaa p taas paragraph macnaheedu tahay waa p di oo labada dhinac laga geliyo labadii qaanso marka qoraalkii ku qoraalkaas marka qoraalkii qortid waxaad tiraahdaa markaas xir ama dabarkii u sameey paragraphkana sameey enter p waa 10 wala marka qortid waxaad tiraahdaa joogsi
kadibna isla sadarka waa ku qori kartaa macnaha waa dabarkii waa ku samayn kartaa waa isku hoos qori kartaa ama waxa weeyaan sadarka dhammaadkiisa ku qori kartaa waa isku jawaabba soo saarayaan kadibna waxaa qortaa baragraaf saddexaad marka baragraafka dabarkiisa marka maxaa sameynay 3 baragraaf iyo ciwaankoodii ama ciwaan marka save dheh mar kale batoonkan waa riixi kartaa toos ama waxaad dhigi kartaa file save kii ku sahlan file save marka waxaa ku noqotaa internet explorer ama firefox ku laabo marka waxaad tiraahdaa ama waxaad taabataa batoonka F5 si macnaha refresh noqdo ama meeshan taabo refresh dheh soo jeedid marka halkan maxaa kaaga soo baxay u fiirso natiijadii xeerarkan sameynay HTML-ka waxay noqonayaan waxay soo saarayaan qoraal la akhrisan karo marka dadka hadhow akhristayaasha waxay arkayaan qoraalkan kana adaa qoray oo HTML-ka ka qortay kan aha laakiin waxa la arkayaa ama la daalacanaya oo browserka laga daalacanaya waa qoraalka ka soo baxay uu soo saaray xeerkaasi Soomaaliyeed waran cajaa'ib Soomaa marka ha isku khaldin ciwaanka guud waxa uu ku saabsan yahay wuxuu ka soo baxayaa ciwaanka guud korba ka soo baxaya browserka nafkiisa ka soo baxaya halka ciwaanadan H1ka ah iyo ciwaanada kale arki doono ay noqonayaan ciwaanka qoraalka ma garatay sidaan casrigan ku soo baranay faylka waxaan u bixinay ama faylkan sameeyay waxaan u bixinay index.html sababtaan u bixinay waxa weeye index macna gaar ah ayuu leeyahay website-yada faylkaasi qoraalada lagu qoraa waa kuwa ugu horeeya ee la arko marka la soo booqdo website marka gashid tusaale ahaan website baa gashay hadda qoraalka ugu horeeya arkaysa wuxuu ku qoran yahay faylka index-ka buu ku qoran yahay marka waa faylka koowaad ama bogga koowaad ee soo bixi doona weeye waan naqaanay soo save garay marka muhiimadaas uu leeyahay sababtaas aan ugu bixinay index casharadana waxa weeyaan wadnona waxa weeyaan wuxuu noqon doonaa faylka aan ku shaqeyn doono oo ku dari doono xeerar siyaada ah ilaa aan ka dhameystiro insha Allah ilaa hadda waxaan soo baranay xeerka HTML oo ah kan u sheegaya browserka u sheegaya luqadda uu ku qoran yahay website-ku inay tahay HTML soo jeedid waxa jira xeer yar oo kooban oo laga hormariyo HTML-ka laakiin waa arki doonaa kaas hadda waxaan u baranaynaa waxa ugu horeeya oo page-ka lagu bilaabaya waxa weeyaan waa HTML waxaan lagu dhameynayaa waa HTML oo dabar leh arrintaas muhiimad bay leedahay dabar waxaan uga jeedaa waa la xirayaa smart waa calaamada janjeerta oo ka hooseysa calaamada su'aalka taabka marka xeerarkii guudna inta lagu qori doonaa marka waa website-ka oo dhan Soomaaliyeed waxa kale oo soo aragnay waxa loo yaqaan madaxa ama headka waxa weeyaan oo aan niri waa madaxa website-ka waxaan lagu qoraa xeerarka sida ciwaanka guud oo aan soo aragnay ama oo la dhexgelinayo title-ka waxa kale lagu qoraa meta iyo waxa loo yaqaan CSS oo arki doono marka headka waxa lagu furaa ama lagu bilaabaa madaxii weeye waa head waxa lagu dabraa head oo dabar leh dabarka macnaheedu waxay tahay marka computerku arko head markuu arko waxa uu sugayaa in la dabro marka ilaa dabarkii uu arko wali wuxuu ka sii fikirayaa in madaxii uu meesha ku jiro xeerarka madaxay ku jiraan meesha xeerarka madaxa waxaa ka mid ah title ama ciwaanka waana ciwaanka guud oo website-ka ka soo baxaya korka ugu sarreysa website-ka marka la arko marka la booqdo waxa kale oo arrintan faa'iideysaa marka la baarayo sida bing.com oo uu leeyahay Microsoft ama Google-ka marka la baarayo marka website baartid ciwaanka ugu horeeya arkaysid ama qoraalka ugu horeysa arkaysid oo linkiga ah waa qoraalka lagu qoro bartaan wajida barta qoraalka lagu qoro waxa weeyaan tan laga baarayo halkaas ah weey tusaale ahaan marka aad baartid website ka soo qaad waxa baartay aqoonkaal.com waxa ka baartay Google-ka marka waxa tiri marka baarto meeshaan ku qornay meesha laga baarayo enter banidi qoraalka aad aragtid ugu horeeya fiiri aqoonkaal cilmiga computerka ku bara af Soomaali waxa weeyaan qoraalkaasi waa kan wuxuu ku qoran yahay headka website ku qoran yahay oo haddii hadda la daalacdo haddii inta la galo aqoonkaal.com halkaas riix oo marka waxa weeyaan la yiraahdo right click lagu sameeyo oo la qoraansado xeerka uu ku sameeysan yahay title raadi title Soomaaliyeed title dabarkiisana uu leeyahay waa ka xeerkii marka
waa ka qoraalkii marka qoraalkaas wuxuu ka soo baxaya marka la baaro marka waa qoraalkii ama ciwaankii guud ee website-ka weeye waa garatay baan filayaa marka sidaasaa title-ku muhiimad gaar u leeyahay ama ciwaanka guud ee website-ka waxa kale aan soo aragnay waxa loo yaqaan body bodygu waa ubuucda website-ka ubuucdiisii waa meesha lagu qoro dhammaan qoraalada sawirada iyo macluumaadka la rabo in la daalacdo wixii la daalacanayay oo soo baxayay waxa lagu qorayaa bartaas lagu qorayaa bodyga lagu qorayaa ma garatay waxa halka marka ka soo aragnay waxa loo yaqaan qalfoofka guud ee HTML-ka wuxuu ku bilaabmaa HTML buu ku furmayaa HTML-kii baa la dabrayaa meesha ugu dambaysa soo maartid waxa lagu xijinayaa head oo dabran waxa lagu xijinayaa title oo dabran waxa lagu xijinayaa body oo dabran marka kuwana HTML waa la dabray head waa la dabray title waa la dabray bodyna waa la dabray marka intaas ayuu guud ahaan ku shaqeeyaa website-ku marka la eego cilmiga guud ee wada ama motorka waa website-ka waa intaas waxa ka dambeeya waxa weeyaan waa in la barto xeerarkii iyo si loo naqshinayo iyo si loo nashnaashayo iyo si loo nidaaminayo in la barto way laakiin guud ahaan asaaska HTML ee aad maqashid ee uu ku dhisan yahay website-ku waa intaas wixii ka dambeeya insha Allah waxaan arkaynaa sida xeerarka loo qurxiyo iyo si loo nidaamiyo waxa kale oo casharaan ku soo aragnay P oo ah paragraph waa paragraafka ama tuducda weeye marka qoraalada labada xeerar dhex geliyo waxay noqonayaan isku paragraph hal paragraph ama hal tuduc cusub bay noqonaysaa wixii lagu dhex qoro labadaas xeer marka bdu maxay leedahay dabarkii waa kana u fiirso b iyo b dabran waxa kale aan soo baranay h1 oo ah oo u taagan heading marka heading h-kaas laga soo qaatay macnaheedu waxay tahay waa ciwaanka qoraalka ma garatay taas uu ka duwan yahay tan soo aragno title-ka ah waan aragnay sidoo kala duwan yihiin waxa jira marka 6 ciwaan oo la sameeyo ayaa jira ciwaanka koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad siday u kala sareeyaan bay u kala weyn yihiin marka h1 baa ugu weyn macnaha kana ugu weyn kana waa ugu yar yahay h1 ayaa ugu weyn h6na waa ugu yar tahay marka ciwaanno hadda rabtid inaad samayso 4 ciwaan oo kala duwan waxaad qaadan kartaa ciwaanka koowaad oo h1 waxaad markaa samayn kartaa h3 iyo h5 iyo h6 khasab ma inay soo xijisid laakiin waxa muhiim ah inaad taqaanid inay kala weyn yihiin waxa laakiin loogu sarreeyaa inta badan h1 si u kala sarreeyaan baan u wanaagsan macna inay soo xigaan ma garatay marka hadda aan ku noqono qoraalkeennii oo u sameeyno ciwaan kaleeto oo siyaada ah waxaan ku soo laabanay qoraalkeennii waxaan leeyahay marka ciwaan baan u sameeynaa halka paragraph ka hooseysa waxaad tiraahdaa waxaad tiraahdaa h4 ciwaanka lambar 4 baan ka dhiganaa marka waxaa qortaa qoraalkii marka waxaa xirtaa ama dabarku xirtaa h4kii ciwaanka marka paragraafkiisu u sameey marka dabarku xir paragraafka aanaynu suq soo baxayo waxaad tiraahdaa save browserkii furo waxaad tiraahdaa refresh eeg ciwaankii h1 muxuu ahaa ciwaan weyn h4na waa ciwaan oo ka yar samaartid casharka koowaad ee HTML natiijada ka soo baxday waxa weeye inaan qornay xeerar HTML oo asaaska u ah isla marhaantaana ay soo saareen natiijo qoraal la akhrisan karo marka ku sii tababaro inta aan gaarin cashar kaleeto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq